waxaa si rasmi ah loo soo afjaray khilaafkii ka dhaxeeyay xukuumadda Soomaaliland iyo waliba ganacsatadii hore gacanta ugu hayn jirtay kaydka hamaha shidaalka ee magaalada Berbera kadib markii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu dib ugu soo celiyay kaydka hamaha shidaalka ee magaalada Berbera gacanta xukuumadda kulan ballaaran oo lagu shaacinayay soo afjaridda khilaafkaasi oo ka dhacay qasriga madaxtooyada Soomaaliland goobjoogna ahaayeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xubno ka tirsan wasiirada iyo waliba ganacsatadii hore gacanta ugu hayn jirtay kaydka hamaha shidaalka kadib markii kulankaasi uu soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi oo sheegay in dhammaan bal la dhameeyay wixii tabasho ah ee jirtay Soomaaliland caadada oo ahayd inaan wax walba ku dhameeyno wada hadalkuna natiijadiisu ay noqoto isafgarad ayay ku dhamaatay ganacsatadu waa ganacsatadeeni wadadkii dalkan dhisay wadadka cashuurta bixiya wadadka mudan in la dhageysto oo la tixgeliyo sidaa darteed wax walba waxaan ku dhameynaa wanaag iyo afgarad madaxweynaha ayaa gudoominayay talada dawladda tan waxa weeye cid walba kastaba in la hadlo la dhageysto wixii cidaasi tabanayso day ganacsato tahay hadii cid kale tahayba la xaqiijiyo la hubiyo kadibna la saxo dhinac walba wax walba waynu dhameynay dhinac walba waxa ka jireenba waynu hagaajinay waxaan leeyahay sidaas iyo wanaag baan ku wada shaqeyn doonaa ganacsatada wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa fariin adag u diray cid kasta oo isku dayda inay Soomaaliland soo geliso shidaal kontrabana oo sharci darro dadka shidaalka ka soo galiyay Itoobiya kontrabanka ah wixii shidaal kontrabaan ah talaabo adag oo xeerarka iyo shuruucda dalka waafaqsan ayaanu ka qaadi doonaa hadii ay baydmo waxaanu doonaynaa cashuur dadku ay u sameeyeen dadka dhan laga wada qaado oo dadka dhan waxa deeqa cadaalad mariyaha hamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera Xasan Axmed Ibrahim Ambasi ayaa isagu ka hadlay halkaasi runtii aad baad u mahadsantihiin waana ku farxay runtii maanta saay wax inoogu dhamaadeen waa mahad Ilaahay oo arintii way noo dhamaatay oo si farxad leh inoogu dhamaatay Soomaaliland horta marka jeclaanaysa waxa marka wax yar la isku qabto ee marka wixii ay ka dhamaadaan runtii ayada qudada waxyaabahan dadkeena aan aad ugu mahadnaqo madaxweynaha iyo wasiirada iyo maaragtay hantiilayaasha shirkadaha shidaalku aad bay u mahadsan yihiin qaar kamid ah ganacsatadii hore gacanta ugu hayn jirtay kaydka hamaha shidaalka ee magaalada Berbera ayaa waxa ay sheegeen in dhammaan bal la dhameeyay wixii tabasho ah ee ka jiray xaggooga iyo waliba xagga xukuumadda isla markaana ay hadda la shaqeynayaan maareeyaha cusub iyo waliba xukuumadda Soomaaliland nayar dhex maray ama taasoo dhex maray ee ahaa sidana aan wadniyo sidaan wadno ayaanu muxuu ahay imika inaan si wada wadno annagana wixii aan tabanaynay waanu ka bogsanay waana isla garanay arrintii hama iyo dawladda waa la isaga yimi faynalkeedii intii horena waa tii dhamaatay ee dawladdu la wareegtay maanta la isaga yimi 5 nin 6 nin guddida loo saaray iyo maareeyihii iyo shirkadii madaxweynaha iskaga yimi waa la dhameeyay waana laga heshiiyay nooc kasta ba ahaatee khilaafkii yaraan qolo waliba wixii ay dabalahayd way qaadatay boortiis baa ka bixisay waana dhamaatay ninkii meesha wax ka daydayo waxba ka heli meesida ku wareer iskaga hawl yarayso wax kale doontood ka adsho halkan waanu ku wada hadalay wixii ma garanaysaa suu tafaahuma ama isfaham la'aan ee jirayna meesha waa laga saaray wixii ma garanaysaa la kala tabanayna waa la isaga garaabay wixii imaka qabyo ah yaalana in si wada jira loo dhameeyo ayaa la isla afkartay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha qaranka Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.